Waxaan ka fikiray sidaan uga bixi lahaa goobtan iyo halka aan aadi lahaa. Waxaana qorsheeyay waddanka aan geli karo, tegi karo. Waxaana noloshayda i tustay inaan aadi karo waddanka Kenya. Waxaan kaloon isdhahay ma adaa dalka Jabuuti, balse waxaan in badanba maanka hadal ku celceliyo. Waxaan go'aansaday inaan horta raadiyo waxaan raaci lahaa. Waxaan subax uu odaygayga baxay ka daba baxay oon aaday suuqa. Waxaana la soo heshiiyey niman gariyaal wata oo u sii socda xadka Kenya agteeda. Waxaana dhahay, waa kan lambarkayga qaata, isoo waca marka aad diyaarsataan safarkiina. Balse waxay i dhaheen in safarku maalmo qaato laga yaabo, maadaama aan nahay xamuul gariyaal qaada ee gariyaal yaryar oo baxaan ku radinaynaa. Waana yeelay hadalkii raggii gariyaasha watay. Waxay ii raadiyeen siday iigu heli lahayeen gaari wanaagsan oo aan shirka ugalo. Waxaana siiyey lacag ayba ka yabeen oo weligood qof safar ah siinin raggii si ay arrinta iigu dadalaan oysan iiga seexan. Waxaana iska imaaday gurigaygii. hawshii talay ayaan qabtay. qof meel u soctaba ma aanan iska dhigin, laygamana dareemin. Waxaana wada qadaynay. odaygaygii annagoo qadaynayna ayaa laysoo wacay, balse maanan qaban oo waxaan dhahay waa lambar cusub xaaji, marka muxuu iga qasayaa? qadada maba aqaanee. Waxaana iska sii watay qadadii, waxba kama shakin. Waxaan ku celiyey markaan hawshi cunista dhammaystay lambarkii isoo wacay, balse nasiib wanaag waxaa lay sheegay inaanan nasiib lahayn oo gari yar oo kuwa raaxada ah ii heleen oo gelayay Kenya, balse uu iga tegey. Waxay i dhaheen waanu kuu raadin ilaa bari ee iska naso, laakiin lambarkaad aragtaba qabo oo soo dhaqso markaan ku soo wacno. waayahay ayaan dhahay. waxaana ku heshiinay inay ii dhaqsadaan oo ii raadiyaan gaari wanaagsan oo ammaan ah lana garanayo cida wada. waayahay ayay dhaheen. waxaan iska qabsaday sidaydii wixii howl layga baahnaa xafadda. gabar aanba ahayn gabadh safaraysa, xataa dharkayga ma aanan diyaarsan. horaa loo dhahay sirnaageed lagama sal gaaro. waa runtaasi waayo qof safar ujeeda uma waxaaba la imoodaa gabar aqalkeeda iska hagajisanayso oo noloshii reernimo ku jirta. habeenkii ayay waxoogaa kurba ah igu yara dhalatay oo ah hantida odaygu igu ammaansaday. haddaad la tagto waxa ka dhalan kara, ama reerkaanaga waxa la soo gudbonaan kara. waxaan habeenkii oo dhan ku jiray soo jeed iyo fikir. xoolahan waa wax lagugu aaminay adigoo ah xaaskiisa, haddana ma ahan waxaad saarabto u isticmaali karto. ninkaaga waa ninkaga. ma ogid hadda wax kugu soo bixi doona inaad uur leedahay, xataa ma ogid. habeena dhaweyd waa ka ilowday kininigii. maxaad samayni hadda uurku kugu soo baxo? ninkan odayga ahna adoo uur ah inuu ku arko ayuuba ku sugilayahay xoolihiisa inaad qadato, uurna aadan u yeelan. hadad u yeelatana aad ka fogaato. alla maxaa asaga ku dhacaya? maxaase hooyada, aabbaha, walaalaha, magaalada, bulshada ku nool ku dhahayaan? ama hadal hayntaadu noqonaysa mid isgaadhay. balse haddana nafta iyo shaydaan baa ii jawaabay oo i dhahday habadelin qorshagaaga, ku soco waxaad damacsantahoo dhan. maxaad u cabsan? maxaa kaa galay reerkan dhaqashadiisa? hantidan ayadba ka tajiri markaad wadan quman tagtee. alla naftayda iyo shaydaan la sheekaystayey. waxaa baryey waagii. waxaana isku diyaariyey nolol malmadkii guriga sidii lagu hagajin lahaa. waxaan noqday qof iska shaqaysanaysa, balse walwal iyo soo jed xalay ah ka yara muuqdo iyo caajis badan. ninkayda wa dareemay. wuxuuna dhahay gacaliso ma wax ayaa ku haya xanuun ah? balse maya ee maxad aragtay ayaan dhahday. wuxuu dhahay inaad ilgoon tahay ayaan ku arkaa, oodan faraxsnayn. ma wax uur ah ayad qaaday? ma ku soo baaraa? qaali hayga xishoon ee ii sheeg wax. balse waxaan dhahay maya, xoga madaxa ah i xanuunayo. hadday wax jiraan waan ku sheegaya. qaali waayahay ayuu dhahay. wuxuuna aday magaalada daqiiqado. asagoon maqnayn ayaa laysoo wacay, layguna dhahay soo bax, gaari kalaan ku haynaye. ways diyaariyey boorso ayaan dhar ku gurtay. waxaan soo qaatay wuxuu dahab ii so gaday oo dhan. waxaan furay qaanadii lacagta. waxaana isweydiiyey lacagtan oo dhan haddaad wada qaadato waa lagu soo qabanayaa ee wax ka qaado. waxaana qaadatay 3,500 oo doolar. waxaana soo gaaray goobtii aan ka bixi lahaa. waxay isareen gaarigii baxayay oo ah nooca raaxada oo la geeyo inta badan xadka Kenya iyo Soomaaliya. gaariyada noocaas ah lagana gato ganacsato Kenyan ah. waxaan qaadnay laamigii safarkii dheeraa. waxaan maalinkii oo dhan socono dhul aanan weligay arag oo maqal igu ahaan jiray. ayay duruuftu imarsiisay. kolba magala wax laga cunaa, balse wax inaan cuno marabo. naftayda dhan ayaa isku buuqsan oo isla hadlaysa. kolba wax ayaan isweydiinaya. waxaan weydiinayaa ee ugu weyna waxay ahayd tolow ma lagu soo radin doonaa ama lagu qabtaa ood baxsan weysaa ood ku cibowda ummada oo dhan. ninkii lagu siiyeyna amina dambe waa idiin kala dhammaatay. balse waxaan niyada ku dhistay inaysan waxaasi jirin. cid og meelaan u baxayna aysan jirin, balse aan iska dhigo qof degan si aysan dadka gaariga ila saaran ii ogaan. balse gaarigaba waxaan ku saranahay 2 gabdhood iyo 4 wiil uu ku jiro darawalka. aad ayay u qayilayaan dhammaantood. waxayna kolba saranayaan hees cusub. xataa gaariga si quman uma wadaan oo waxay ku wadaan xawaare dheeranaya. oo waxaanba ka baqayaa inaan shil galno. aniga waxaan sameeyo ma garanayo oo ma oran karo aayar wada geriga. balse waxaan isdhahay amay daalac ku qabsadan. iska aamus. waana iska aamusay anigoo naxsan.
habeen ayaan seexanay magaalo yar waxaana uu dhahay darawalkii hala casheeyo hala yara nasto waan sii guuraynaa cawa ma saxanaynee waayahay ayaan dhahnay balse aniga geriga kama degan oo waxaan dhahay waxaan u baahnahay malahan gabdhihii ayaa i dhahay walaashay wax la isku daymaya ayaan dhahay ee igaday waxna uma bahniye waayahay intay ii wada dheheen ayay iga tageen aniga waxaan ku dhex oynayay geriga oo waxaan ka baqayaa inay wax iso gaaran hantidan dahabka ah een wato lacagta aan wato ayaan naftayda in loo dilo ka baqaya meeshaan marayno oo dhan ee dhulka ah waxaa joogta mooryaan isbaarooyin badan u taalo waa aan baqayaa balse maxaan samayn karaa waa uun iska oynayaa oo keliya allahna waan baryay ina magantiisa ahay kana doonayo garab iyo cawinad habeenkii oo dhan ayuu gerigii sidii noo sii waday waxaana garnay subixii magaalo aad u weyn balse burbur iyo nabad la'aan ka jirto waxaan ka cunay halkas cuno yar iyo biyo aan iibsaday aniga oo isleh amaba lagu garta oo lagu celiyaa dib oo ninkaagii dad u soo diray ku radinayaan ayaan dhaqso waxaan ugu noqday gaarigii dadkii ila saarnaa mar dambe ayay imadeen waxayna i weydiiyeen inaan wax soo cunay iyo in kale anna waxaan dhahay waan soo cunay dhammaan rakaabka waa ay shakaysanayaan way buuqayaan balse aniga wax aan la hadlayo malahan marmar darawalkoon agtiisa fadhiyaa ila hadlaya ana wan u jawaabaa wuxuu i weydiiyo oo wara gaariga waa dhaqaaqay balse markaan in yar soconay ayaa waxaana istaajiyey kuwa mooryaan ah waxayna darawalka weydiisteen lacag haddii uu siin wayana uu halkan tagnan doono maanta oo dhan balse waxa uu siiyey markay murmeen kadib lacag aanan qiyaasteeda sheegi karin aniga oo naxsan ayaan ka dhaqaaqnay meeshii isbaarada waxaana sii soconay dhul duur ah idi ma hadlaynin waxa su'aal i weydiiyey darawalka walashay aamusanay maxaad la murugsan tahay mad sida ummadan oo kale iska faraxdid ood iska hadashid balse aniga waxaan dhahay ma jecli hadal ee gaariga inoo wad tartiib oo haynagu gelin shil balse asaga hadalkas muusan ii garaabin waxaana soo galay damac iyo inuu aniga wax iga heli karo oo naftayda suurabo ka heli karo balse shako badan kadib waxaan u sheegay inaan ahayn gabdhaha uu u malaynyo istaji oo geriga wadaan ku dhahay waana iga xanaaqay asagoo idhahaya reer badiyada tahay maxaa ku soo geliyey safarkan dheer qof lala bashali karo matihid ee gabar dambaysaad tahaye balse kaba aamusay aniga ilbaxyadan la shakaystaa reer badiyo ado kale ah ayaan u necbahay oon wax fahmaynin anigu caay ii qabsaday dabadeed ana waan iska aamusnaa oo allow kaa indhosaab ayaan lahaa odaygaygii ayaa wuxuu imaday wakhtigii qadada ahayd guriga wuxuuna ogaa inaan yara xanuunsanahay wuxuu iso gaday hadyad iyo cunto uu iigu talagalay inaan cuno wuxuuna naftiisa iska dhaadhacshay inaan qaaday uur oon ka qarinayo madama aan saaka ahaaw qof caajisan oo daalan odaygana waa gabadh yar oon sheegan karin uurkee adigu garo ayuu isdhahay wuxuu soo galay guriga wuuna iga waayey daaradii jikadii qolalka wuxuu isdhahay xagay aaday balse shaki saas u badan ma sii gelin wuxuu isdhahay bannaanka ayay wax ka doonatee u yara kaadii iska sug dharka iskama usan sarin alabtuu iwadayna wuxuu saaray miiska qadada hal saac markuu wayey wax u imaada ayuu wacay hooyaaday iyo xaafadeenii wuxuu dhahay ma ku imaatay gabadhii maya ayay dhaheen ilaa hal saac ayaan jooga mana imaan ee xagay adi karta weligeed meel maysan aadine waxaa dhammaan soo gurmaday eheladii iyo ninkan ka soo baxsaday qaraabadiisa meel aan layga raadin malahan cisbitalada iyo xabsiyada meel kasta waa layga waayey waxaana daalay ummadii ku jirtay raadiskayga qof kastoo walbahaarsan ayaa waxaa layskugu imaaday gurigii ninkayga kolba qof daalan ayaa imaada oo la siyaabiyo uu cabo ninkaygoo murugo aysan u yarayn oo isleh gabadha yaa kaa afduubtay ayaa waxa uu galay qolka jiifka wuxuuna rabay dadka dalay inuu lacag intuu u soo saaro dhaho cashoku doonta balse markuu qaanada furay ayuu arkay lacagta oo isku dhex yaacsan way isku hagaajiyey waana tiriyey mise wax ayaa ka maqan wuxuuna eegay isla qanadaas dahabkaygoo ku jiri jiray oo ka maqan waxa uu fahmay inaan baxsaday asagoo ordaya ayaa soo baxay dadkii bannaanka joogay ayuu u sheegay inaan baxsaday balse uusan garanaynin meel aan u baxsaday wuxuuna sheegay inaan lacag uu iibtay $3,500 qaatay dahabkiina la wada tegay telefoonkayga hawada waa ka maqan yahay oo shirkadaan watay meeshan joogay ayay ku ekayd balse maxaa la samayn karaa waa uun amakaag aabbahay ayaa subixii loo yimid waxaana u yimid odayaal iyo ninkii qabay waxaana la dhahay gabadhadii haddaan maydkeeda helno wax aan ku haysano malahan haddaan ayadii oo caafimaad qabta oo reerkeeda dhaqanaysa keentana waxba kuma haysano balse hantiday naga qaadatay ha soo celiso anakana dhaqashaanu rabnaa ma doonayno war kale xidid ayaynu nahay ee yaynan isku xadgudbin waa hagag ee isuga oo aan gabadha wada raadino ayuu ka codsaday waana lala qaatay meelo badan waa lala hadlay oo ehelo deganayd waa la weydiiyey ma aragteen maya ayay dhammaan dhaheen tolow haday nooshahay sowma soo hadasheen ayay isweydiiyeen dhammaan reerihii oo dhan aniga maanba ka warhayaa xaladba anigay tayda i haysataa oo murug i haysayo wayo waddanka aan dhex socdo waa waddan anan weligay arag waxaana u socdaa waddan kale oo ah meelaan cidi i joogin oo aan ku cusbahay bal waxaan sameeyo ma garanayo dib uma noqon karo oo xaaladii reerkayga iyo reerkanaga waa isku qasan tahay allow sahla muuraha
muddo isbuuc ah ayaa wax war ah layga waayey waxaana labadii dhinac ee midna aan ka dhashay kidnina i qabay wada fariisteen gogol xaajo ah waxaana lays weydiiyey hadallo badan dhankan ka dhashay waxay ku andacoonayaan inay gabadhi ka maqan tahay oon lahaynin raad iyo ruux dhanka kalena waxay ku andacoonayaan in aysanba gabadhu iska bixin ee qorshe loo degay odayga hantidiisa lagu qadanayo gabadha reerkooduna la ogaa tegitaanka haddana ay iska warqaban gabadha iyo reerkooda aniga waxaan imaaday magaalada Doobley waana magaalo ku taala xad cidii aragtay ama tagtay ayaa garan Doobley waa cirifka Soomaaliya ugu dambeeya ee laga galo dalka kale ee dariskanahay ee Kenya oo ah meeshaan tilmaansaday inaan aado markaasna la qabsado nolosha iyo marxaladaha lagu nool yahay daal ayaa i hayo habeeno badan maseexan waxaana noqday qof murugo badan hayso dhanka odaygayga waanka murugsanahay dhanka welidkayna waanka murugsanahay dhanka walaalahayna waanka murugsanahay dhanka dadka maqli doona hadalka ama sheekada dhacdayna waanka murugsanahay waxaan sameeyo ma aqaan anigii waxaan ahay qof maqana jooga ah gaarigii wuxuuna keenay hotel oo dhahay maalmo jooga halkan xadku waa adag yahay lama geli karee waxaan degay hotel waxaana seexday anigoo ah qolfoof aysan nafi ku jirin maalintaas oo dhan ilaa habeenkii waan jiifay xataa awood aan ku qabaysto waan iska waayey subxaan imaaday subaxisii kale ayaan sariirta ka soo kacay oo qabaystay waxaana isku diyaarshay inaan hooyaday waco oon u sheego inaan aniga ka tegay noloshay igu tuureen